hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa u xaqiijiyay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio in si nabad ah lagu dhameeyo muranka hareereeyay doorashadii madaxweyne ee ka dhacday dalka. Raila Odinga oo 77 jir ah isla markaana maxkamadda sare u gudbiyay loolan ka dhan ah natiijadii doorashada madaxtinimo ee ku dhawaaqeen guddiga doorashooyinka 15 Agasti, taasi oo la sheegay inuu ku guuleystay William Ruto ayaa khadka telefoonka ugu sheegay Antonio inuu ixtiraami doono xukunka maxkamadda sare. Raila Odinga waxa uu muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay in xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio uu kula soo xiriiray khadka telefoonka kalana hadlay doorashada Kenya iyo waxyaabihii ka soo baxay ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Raila Odinga. Intii lagu guda jiray wada sheekaysiga telefoonka oo qaatay ku dhawaad 10 daqiiqo, Antonio waxa uu uga mahadceliyay Raila Odinga inuu doortay inuu sii wado loolankiisa ku aadan natiijada doorashada madaxtinimo ee lagu dhawaaqay, isagoo u maraya hay'ad dimuqraadi ah iyo kuwa sharci ah iyo maxkamadda sare. Raila Odinga ayaa bogaadiyay baaqa Antonio isagoo sheegay inay ka turjumayso ixtiraamka sare iyo xasiloonida ay caalamku u hayaan Kenya. Raila Odinga waxa uu sidoo kale u xaqiijiyay Antonio in Kenyaanka ay si buuxda uga go'an tahay dimuqraadiyadda iyo in si nabad ah lagu dhameeyo khilaafaadka doorashada ee isdiidan una ixtiraami doono go'aanka maxkamadda sare ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xafiiskiisa. Raila Odinga ayaa horay u sheegay in natiijada doorashada ay tahay mid sax aan ahayn, isagoo tuhmaya in guddiga doorashada qaarkood ay sameeyeen khiyaano iyo wax isdabamarin. Maxkamadda sare ee Kenya weli wax waqti ah uma qabanin xilliga ay qaadi doonto dacwadda kiiskan xasaasiga ah iyo goorta lagu dhawaaqayo go'aankeeda kama dambaysta ah.